haddayna isku tashan tamaryeeda mayne shirka laga hadlayo labada gudoomiye iyo agaasimaha caafimaadka iyo ururada dhalinyarada anigu maadaama aan dhalinyaro ay hal abuur degmada ka tirsanahay waxaan halkan kaga qayb qaadanayaa dhammaan la hadlaya ummadda reer Gadofu gaar ahaan kuwa Puntland waxa la yiri diinka bahalka leeyahay aad iyo aad buu gaabiya haddana wuxuu leeyahay han iyo meel uu higsanayo gabayba wuxuu ahaa diinkuba tallaabo rogaa taageeraan socod meel tuuriyo gaadho ku tagay 10 daraarood adigoo ka tabaroon maxaa taa u garan weyday gabay kale wuxuu isku tiirsanaan bay gacmuhu tabar ku yeeshaan hadii midugtu kali taagan tahay tahar ma goyseen waxa soo dhan waxa weeye waa gubaabo qofka bini'aadanka haduu han leeyahay waqti kasta ha ku qaadato hadda waxa muuqata 10 sano in hadda baqcadaas ay oolayd 10 sano baargaal oo dhan baa waxa laga dhisi karaa macnaha waxyaalo aad iyo aad u muhiimsan anigu degmada waa u dhashay laba bilood baan joogaa waa ka shaqeeyaa mashruucaas macnaha MCH loogu dhisayo inkastoo hadda aan shaqo bilaabay oo wali aan soo tabakorin haddana waxaan ku deeqay qofka ugu horeeyay inaan noqdo baan rabaa $50 baa ugu deeqay insha Allah idinkana waxa la idinka rabaa intiina meesha joogta inaad bilowdaan horta haddii idinku bilaabin oo idina lacag ku deeqin qof kasta uusan wax ballan qaadin lama helayo marka adigu wax dhaqaajiso baa wax lagu dhaqaajinaya haddaan maalin kasta hadallo isu imaano waxay noqonaysaa waxba kama jiraan weey marka intaas aan ku soo koobaya haddayna isku tashan tamaryeeda mayne